السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hadal TV toddobaadkii maalmaha kamid ah naga dhageysan wararka daafaca caalamka waxaan dalay dibad baadiga hayno wararkii oo kooban madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Abdullaahi Ciro ayaa munaasabad ka dalka Qatar dhinaca kale Puntland iyo Jubbaland ayaa ku tilmaamay madasha qaranka dowladda federaalka mid jaliska hore halkii markii hore oo ay Jubbaland ka ahayd saxiixyadii hore la saxay balse ay ka maqdeen Puntland dowladda Djibouti ayaa dabaaldegaysa xirimadii 1977 ka qaatay Faransiiska Ismaaciil Cumar Gelle ayaa hambaliyay dhamal bogaadimo mudan halka bulshada Soomaaliyeed ay uga mahad celisay sida Ismaaciil Gelle uu dadihiyay dowladda Djibouti wararka ayaa naga soo gaaray magaalada Laascaanood oo ka digay gudoomiyaha hore baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaasa xilliga dagaalkii isaga baxay Soomaaliland haatana u sharaxan inuu hogaamiyo Khaatimo dhinaca kale danjiraha oo qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa ka digay magaalada Hargeysa halkaasay isaga iyo jaranka oo qaabilsan Afrika ay ka digay magaalada Waftigaas si balaaran lagu soo dhigay magaalada Hargeysa xilaatigii Juun ayaa lagu xisay magaalada Hargeysa dhinaca kale iyadana lagu xisay magaalada Muqdisho xilaatigii Juun ay Soomaaliland si gaar ah u sheegata ay halkaas ay maalintii ugu horeysay aan laga tago magaalada Hargeysa taasoo lagu joogo muddo 65 sano dhinaca kale dowladda Iran iyo Israa'iil dagaal ku dhaxeeyay ayaa markuu gaaray dhinaca khaliijka ugu gudbay halkaas isku gantaalo ku dhuftay Qatar Kuwait iyo Iraq si degdeg ah Mareykanku uu joojiyay halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha kamid ah aanaga daawatan ku soo dhawaada waxa weeye waxa laga helay daafaca caalamka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Abdullaahi Ciro ayaa ka digay magaalada Qatar halkaas uu isaga wafdi ballaaran oo ay ka mid yihiin wasiiradiisa madaxtooyada ودينتي أقافته وسيرك أرمها دبدة أي كدجين مقالة قدر هالكاس الشجين إنه وفتي قبل أنا أي كهرين مرتقاد دولة قدر وأمريكا ورسي أي مدحونا تبني سمالاني وكنت قدر قدر ولو حلقي الله نحسي دولة أحمد محمد سلايو وهو جامني وكنت وسيرك قرشينته ساعد على الشراء بس أنا لقيه إن علاقات كاسي صعدوا دولة الصومال أي أقول عرض وجهته سيدا قالوا وجه الأدوية مشاريع يسوي الاعتراف تاسي يقول عرض أي وجهته إن دولة الدنيا كجمع للسو إن يوفود إذا بدل شيء كهر اللي قدوني اعترافها من حوالها أي أود ما بدن كوجا بحية تانية حلقي وهي دراسة لقبتي وكوجولستي كوجا بحني جاس أفريقيا هالكاس مر كهر اللي قبل بشري دولة جيبوتي إثيوبيا برسيمكا جهادي هراء ذكر إليهين وكتشتي dadka ayaa walaac ka muujinaya qaarkood warina mucaaradka madaxweynuhu inaanu tagin dal aan la isku hubin kaasoo aaminsan midnimada Soomaaliya dabadan oo ka riixay dalka Turkiga balse dhinaca kale dowladda Qatar iyo Mareykanka ayaa ku aad u saaxiiba halkaas muddo weyto safiirka oo qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo jaranka oo qaabilsan Afrika ay ka digeen magaalada Hargeysa kuwaas oo la sheegay in cilaaqaadka Mareykanka iyo Soomaaliland oo ahaanay mid ka soo koraya halkii hore دوان واحد يقول أهله هين إنه سومالان مريكا واعترافيه ولو تاسي أنا ولي عاد يسافرين بس برلمان كي يقولها سردكو أي وركاسي لقى قادر يجي قيبة كاملة سيكوستي هاتبا ويحب وركاسو كلا دور كقدر يوحي مدحوينه وكسو لقى ولقى شو بواحد يقول سوحي وري وعال دب دولة بلدان يجبلان أياكوك عن سرير دولة فدرال كمدرس والقرنكا مدة وقصد هالكاسي معارضك محافظكو labadaba ay ku kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay inuu gogol nabadeed mar walba ku soo dabaali doono wax kasta laga tabanayo walow markii hore qolada mucaaradku ay ku eedeynayeen in madaxweynuhu ka dhagaadeeyay wixii shalaytay isoo ku baaqiyay ma uu arkay inay khalad tahay maanta isagu uu falayo dhinacyada Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu ku gacan saaraya kaasoo ku sugan magaalada Garowe sheegana in hantida qaranka iyo loo isticmaalay hub iyo rasaas kaasoo la rabo in bulshada la isugu dhiibo iyo diin canfiti loo isticmaalay dana gaara dowladda Puntland ayaa muddooyinkii Xasan Sheekh intii la doortay kadib ay ahaayeen kuwa xilgu fadhiya halka hadda ku soo birtay Jubbaland ay madaxweynaha waxa dhex maray dagaalo sokeeye kuwaas oo ku mareeyeen jubbooyinka iyo qaybo kamid ah deegaanada Jubbaland wali lama hayo ergal oo kala dab qaada Jubbaland iyo Puntland iyo dowladda federaalka sidii waxyaabaha la isku hayo ama baarlamaanka ha noqoto ama golaha sanadka ama dad kale iyo sixil qaamayba بس waxa la sheegay madasha qaranku inay gudi u saari doonto si loo helo xal nabadeed lagula gaaro doorasho qof hal iyo coda madaxweynaha ayaa isagu
وسؤال هذا كوني شيء إنه يسوي عليه إن أنا نقول عن تلذي تي تصل لبعضه دل سنين درسين تنكرسي أي كسر قالي بشلا الصومالي أي دونيسا عدك أيوة دور الهاين إن أنا عاقل صارين كان قوينينا سكستها تبا ولي الآن لما هيو ملا تانية ملا تانية لسه لقيتونه هل كيكون دمبين دولة فدرالك يجيب بلان يبتلان هل كيسلا كان قادونان إن عاكله وفي بلان هو قامنا عبد الرزاق خليف وهان شري قدوميه برلمان كتبلي سومالان لبض كوني لبي لواتكي أو هاتن كسرن مقالة مقصود اجتماعية يمين مقالة الأسعانود عبد الرزاق أيها أشرحن إنه قام خاتمه dadii waqar ayaa sheegaya inaanu ku habboonayn halka kaga habboonayn fadhiya oo intii isagu joogay hanaqaad balan ka dhacay halkii leeyihiin waxa dhibaato kale ka timi isu gorfaynta deegaanada Puntland iyo Khaatimo kuwaas oo markii ahaa mid ku midaysna dagaalkii lagu qaaday Somaliland balse Cabdirasaaq ayaa sheegay in isagu xal nabadeed cid kasta oo gobol ku fadhiisan walow Somaliland iyadoo aanay jirin wax gobol oo wali aan kala isku leeyahay balse uu sheegay in si kastoo nabad lagu helayo iyo wanaag la helayo in loo hoggaansamo wixii war kastoo kale doorashadaas oo la rabo inay ka dhacdo magaalada Ascaanood loogu tartamayo cidda gudoomi doonta ee hoggaamin doonta Khaatimo sala sheegayo bishan dhamaadkeeda ayaa la gulagali doonaa walow aanay ka hadalin bulshada badaheedii kale Khaatimo ayaa haatan muddo 2 sano ah dhinaca kale dagaalkii u dhaxeeyay Israa'iil iyo Iran ayaa ahaa kii ugu xadaafsanaa ee tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka soo mara kii ugu cajaa'ibsanaa soo mara adduunyada kaasoo gilgilay dhammaan badaafaha caalamka sida Chinaha Ruushka Mareykanka iyo Ingiriiska ama Yuruba dagaalkaas oo socday muddo 12 casha balse la isu gaarsiiyay aafo la soo aasray gantaalaha hawada sare lalaya ee midba kale ku ganayo iyagoo ku asaan lahayn wax xuduuda markii dagaalku uu dhaafay dhinaca khariijka dowladda Qatar la gaarsiiyay salgiga ku leeyahay Mareykanku gantaal ku dhaceen dhinaca kale ku wada sheegay dhinaca kale Ciraaq ayaa Mareykanku wax ku dhawaaqay xabad joojin degdega walow aanay jirin erga qaramada midoobay ka tirsan ama daafaca caalamka kale ka timi oo kala dab qaadaysa Israa'iil iyo Iran halkaas markii hore dagaalku iyaga dhex mariyay balse Mareykanku uu ku soo biiray isla markiina dagaalku ku fiday khariijka Carabta halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha kamid ah naga daawataan safiirka fadhiya Mareykanka Somaliland iyo Soomaaliya ayaa ka degay magaalada Hargeysa halkaas la socday channelka u qaabilsan Afrika wafdiga ballaaran ayay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa ku kulmay magaalada Hargeysa halkii markii hore ka degeen magaalada Berbera wafdigaas ayaa dadku ay rajeynayaan inuu ahaa wafdiga u ballaarna abid ee soo maray geeska Afrika gaar ahaan Jubilee Somaliland halkaas la kulmay dhigiisa kale dowladda Kenya iyo Ethiopia channelka ayaa si la sheegay Mareykanku oo rabaa saliga Berbera inuu isticmaalo halkaasna ay dowladda Somaliland ay ka heshay dhaqaale iyo aqoonsi dhinaca kale walow aan la sheegin in aqoonsiga iyo saligu ay isku xiran yihiin balse dadka qoraa ama ifafaaleeya ayaa Somaliland ay dadka dhigay siyaasadda waxay sheegeen in Mareykanku haqal taagayo Somaliland inuu iskaashi military kala sameeyo dhinaca istiraatiijiyadda badda cas saliga Mareykanka ee ku yaala Djibouti in qayb kamid ah loo saro Somaliland garoonka diyaaradda magaalada Berbera ayaa ah kan Afrika ugu baaxadda weyn xagga diyaaradaha markay ka duulayaan Somaliland ayaa gulcaro hadalku dhigay markii hore gulcaro ugu jirta in adduunka ama dhaqaale kaga hesho ama ictiraaf taas ay rabto in shaqaabur iyo bulshada ay walaas ictiraaf walow aan la ictiraafsan Somaliland haddana waxa jira hay'ado madax bannaan iyo kuwa caalamiya iyo kuwa maalgashi ku sameeya Somaliland sida DP World halkani waa hadal TV oo toddobaadkii maalmaha kamid ah naga daawataan wixii wareey walcaal naga soo gaara wafdiga ballaaran madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku joogo dalka Qatar kaasoo la rajeynayo warar ka soo baxay loo qaadantaa wixii wareey walcaal ka soo kordha iyo wixii federaalka Soomaaliya ay Jubaland iyo dhamaanba waxaan hambalyo bogaadin u dirinaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan 26 Juun kooda luuliyo iyo 7 Juun oo intuba ay yihiin xorriyada Soomaaliyeed oo mid meel gaar ah oo ka dhacay mid ka dhacay Hargeysa iyo midowgii Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dowladda Djibouti oo qaatay 1977kii oo loo dibaadiyay 2 casho kor halkani waxaan hambalyo bogaadin bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay
noolaada farxad iyo reerin iyo riyaaqid ku noolaada annaguna halkiina ayaad uga hamlaynaa wacana wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu